isku soo noqdo waxaan ciyaarta meel walba joogtay oo markale muuqaal cusub ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta ee kulamada caaw lagaga ciyaari doono qaaradda Yurub iyo kuwa xalal la ciyaaray kooxda kubadda cagta Arsenal oo taaka loo dhigay kadib markii garoonkooda Villa Emirates barbaro eber lagu celiyay nimankii Manchester United ahayna bandhig fiican ay ku jiraan oo cidu caadi ma aan xalana guul weyn ay gaareen markii Bournemouth Old Trafford ku xasuuqeen CR7 oo si la yaab leh loogu soo dhaweeyay garoonka kooxda Al Nassr xaflad weyn loogu qabtay isla durbadiiba odaygu training-kii iyo shaqadiisii hore ayuu ka bilowday odaygu caadi maahan Madridna xalay guul ayay gaareen xilli hal iyo eber kaga adkaadeen koox yar oo Copa del Rey la ciyaarayeen haddii aan muuqaalka ka heshan oo la garay kanalka subscribe noo saar haddii aynu ku bilowno kulamadii la ciyaaray xalayto waxaa ka mid ah Manchester United oo guul muhiim ah ka gaartay saddexda dhibcoodna ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Bournemouth xilli ay kaalinka saddexaad Manchester hadda joogaanba waxaa la leedahay hadda Manchester saddexaad ay joogtaa ma joogto laakiinse Newcastle oo kaalin saddexaad ku jirta ay ku dhibcan yihiin maadaama Manchester United kulan baaqiya ay haysato marka 35 dhibcood ay haatan isla haystaan labada kooxood Newcastle United iyo kooxda kubadda cagta ah ee Manchester United Manchester xalay waxay soo dhaweeyeen laacibkooda lagu magacaabo Martinez oo ku soo guuleystay koobka adduunka biladiisina xalay la yimid xalay ugu dambeyn Manchester goolasha waxa ka kala heleen laacibiinta kala ah Luke Shaw iyo laacibka Casemiro iyo ninka Marcus Rashford Manchester United 7 kulan xiriir ay haatan Old Trafford ku adkaanayaan waa markii ugu dambeysay sidaan oo kale ay sameeyaan waxay ahayd xilligii Jose Mourinho Manchester ayaanta waxay u muuqataa niman soo kacay oo soo rogaal celiyay ugu dambeyn cid way raaxaysteen ninkii Casemiro ahayna waxa u muuqda nin Old Trafford iska jecel ugu dambeynna Manchester United xalay waxba laga qaban karo nimanku way raaxaysan xilli Marcus Rashford 4 game xiriira hadda uu gool dhalinayo odagu 4 game consecutive ayuu shabaqa gaaraya ninka la yiraahdo Marcus Rashford Manchester United waxay u muuqataa koox hata soo rogaal celisayo cidu way soo rogaal celiyeen ugu dambeynna Manchester United way raaxaysteen wayna adkaadeen dhanka kaleetana kulanka ugu xiisaha badnaa wuxuu ahaa kii dhexmaray kooxaha Newcastle United iyo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Arsenal hogaamiyaasha horyaalka oo xalay rajeynayay inay guul gaaraan maasitana ka saramaraan 10 dhibcood ayaa waxa farqaha qabsatay nimankii Newcastle United Newcastle waa kooxda ugu difaaca fiican horyaalka Premier League xil ciyaareedkan waayo 11 gool kaliya ayaa laga dhaliyay waana koox 15 game kul tartamada oo dhan aan laga adkaanin Newcastle United waa koox aan waxba laga qaban karin marka waana kooxda ugu difaac fiican horyaalka Ingiriiska oo Arsenal sidoo kale Villa Emirates waxay ku joogeen unbeaten 7 game xiriira ayay badinayeen weyn laakiin xalay waa loo gambaday nimanko فرق ayaa lagu dhagay waxaana la yiri nagama dheeraanaysid Newcastle xil ciyaareedkan xataa way fiicanta 35 dhibcood ay leedahay Arsenal 44 ay leedahay farqiga u dhaxeeya marka waa 9 dhibcood halka Man City laga sareeyay 8 dhibcood marka Newcastle United farqaha ay qabsadeen wiilashii Michael Arteta oo hogaaminayay xilli kulankaas la bixiyay jaalayaasha ugu badnaa Arsenal iyo Newcastle United xaaladda jaalayaasha waa iska daldashay labada dhinac waxay leeyihiin ciyaar fantastic ayo raacishada Trump eedo weerar celisad xilli labada dhinac bajaanisa badan ee heleen ugu dambeyn ciyaarto eber ayaa ku soo gabagabowday sidaana Arsenal laba dhibcood ay Emirates ku lumiyeen dhanka kale tan kulamada caawa la ciyaari doona waxa kamid ah horyaalka Talyaaniga ayaa la ciyaari doona AC Milan xilli hore duhureyda ay ciyaari doontaa 8 saac ay ciyaaraysa kooxda kubadda cagta AC Milan marka xilli ciyaareedkan nimankii Napoli ayaa kacsano iyagu caadi ma ahan waxba laga ma qaban karo maadaama horyaalka sanadkan ay ku raaxaysanayaan fantasy weyn ay dhiganayaan odayaashii Napoli caawana kulanka ugu adag seeray ayaa jiro 4 saac 45 daqiiqo waxa wada ciyaaraya Inter Milan iyo kooxda kubadda cagta Napoli waana kulan wax kala xilli xataa ciyaarayso kooxda kubadda cagta Juventus waxay la ciyaarayaan koox la yiraahdo Cremonese mar saacadu markay tahay labada fiidnimo iyo barka AC Milan 8 saac ay soo galaysaa marka kulamada kale taxtay waxa kamid ah Tottenham ayaa kamid ah Crystal Palace la ciyaaraysa laakiin kulanka ugu xisaab badan waa kan Inter Milan iyo kooxda kubadda cagta Napoli dhexmari doona waana kulan wax kala ahaayo maadaama ciyaartu 4 saac 45 soo galayso Inter Milan ciyaareedkan waa xoogaa iska liidata marka loo eego seereeda nimanka Napolina way kacsan yihiin waxba laga ma qaban karo odayaashu caadi maahan hogaanka horyaalkan ayaga ku raaxaysanaya waxayna leeyihiin dhibca gaaraya 40
iyo kow dhibcood ayay leeyihiin nimanka Napoli xil ciyaareedkana wax khasaara lama kulmin guul daro Napoli maba is arkinba xilli Inter Milan kaanka sanad fadhi 30 dhibcood ayay leedahay 5 game ayaa laga badiyay nimankana bareejo isma arkin Inter bareejo ma gasho Napoli lagama adkaado marka caawaan arki doonaayo wixii dhici doona ma Napoli guul daradii koowaad heli doonta mise Inter Milan bareejadii koowaad heli doonta waan arki doonaa mita dhanka kale tana ninkii CR7 ahay waa ogtiin inuu ku biiray kooxda Al Nassr xalayna waxa loogu soo dhaweeyay garoonka Al Nassr xaflad weyn ayaa loo qabtay soo dhaweynayd CR7 si maamuus iyo mugli ayaa loo soo dhaweeyay adigu sirkiisa jaraa'id waxyaabo badan ay ku hadlay wuxuu yiri waa iga soo dhamaatay Yurub yiri wax badan ayaa ka soo qabsatay waxaan ahayo yiri kan ku weerarkii Yurub wax walbana waa ka soo sameystay waxaan ila soo xiriirinay kooxaad u far badan ayaa doonay saxiix laakiin waxaan doortay halkan maadaama aan ahnayo ciyaaryahan qaasa ee tahay dalabku iyo contractigna uu yahay mid qaasa ugu dambeyn aniga heshiiska liila gaaro yiri wuxuu mid unique anigana waxa ciyaaryahan unique ugu dambeyn Ronaldo hadalkiisa sida ayuu xalana xaflad weyn ayaa loo dhigay adigu xafladaas xatay dadka qaar way xasuusta bandhigii 2009 gareegada Bernabeu ka dhacay Ronaldo lagu soo dhaweeyay imaamuskiisii soo dhaweyntiisii mid lamida ayaa xalal loogu dhigay garoonka Al Nassr ay ku ciyaarto Ronaldo markii la soo bandhigay kadib kooxdii ayuu la training gareeyay oo tababarkii iskuuleynta oo ka qayb qaatay waxa la rajeynayaa hatta wararka qaar ay sheegeen inuu odaygu ciyaari doono kulanka Khamiista ay ciyaarayaan kooxda kubadda cagta Al Nassr ciyaartaas soo gali doonta Maghribka waa 12 Maghribnimo ay soo gali doonta dad badan Ronaldo taageer ayaa jiro oo ninkaas isha ku haya meeshan 8 milyan ugu yaraan 7 milyan ayaa la tagtaba maadaama Al Nassr akoonkeedu 860 kun ayuu marayay markuu ku biiray haddana 8 milyan iyo abaf u maraya marka 7 milyan iyo dhowr asiga ayaa geystay meeshaas qof walbana Ronaldo waa dad jecel ayaa jira dad iska jecel ayaa jira Cristiano Ronaldo marka xalana heshiis hore ayuu ku bilowday ninkii CR7 waxay celiya ma lahayn ayuu yiri dhanka kale tana kulamadii Copa del Rey laga ciyaar waxa kamid ahay Real Madrid oo xalay guul gaartay Real koobkan way ku habaaran tahay guul fiican oo raaxle maba gaartaba Copa del Rey nimankan goorma ugu dambeysay Copa del Rey ee qaadaan goorma ugu dambeysay waqti fog ayaa ugu dambeysay waa ugu 2013 Carlo Ancelotti ayaa u qaadaba marka hal iyo Ibra ayaa ku adkaadeen nimanku Rodrigo ayaa gool fantastic dhaliyay ciyaartii daqiiqadii 68 Real halkaas ay ku badiyeen hadii aan muuqaalka ka hesho wala garay kana subscribe